أيها الإخوة إن عفيف للنقضة مركا إن لا دور سنادا سيبا نكا دالين يردي إنو دور سنادا ووحيابا وقوة وين الدين تينو كنا واقس إن لا دور سنادانا وحقفك كوكالمية جرة وشريعة دوينا فرطي وحا كمدا الحياة حشوتك رقوينو حشوده هبلوهنا حشودان وحا كمدا إنان لا يسكو دحدرين رقية دمرك لبا مجتمعو كلا سوعان انتay noqon karaan ba inay noqdaan waxa kamida inaan sheekada labadin oo dhalinyaradu waa nuxnux badantay telefoonadan iyo waxaan laga hadlayaa baabkan in la iska dhaafo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kale kamida hadiiba la isu baahdo la hadlo waxba la kala iibsanaya ama waxba la isweydiinaya Ilaahay wuxuu fala takhda'na bil qawl hadalka هادلنا لما أورن دمرو رجية دمر ما وضع هادل كرا لما أورن لكن وحلا يدي محي فلا تخضعنا بلا هذا الكهاي تشبيننا أو تشبيسكو إنه قاسكو وحشة جينا أيا وحلا شيء جيا كلهم قري ولا لواي مساد بحش السينة يسهدينا تتراهدو يا ده تراهو برال كريم مسال السيا labaduba waa laba eray oo isku intii laakiin sida loo yiri ayaa kala gadisan ilaahay wuxuu leeyahay fala takhda'na bil qawl hadalka ha jajabinina hoos wax hunguri ka keena ninka wax walo gabadha ka midiba sanqadheeda baynu nidhi ilaahay quraanka muxuu ku tilmaamayaa quraanka muxuu sheegay fi suurati an-nur wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma cagaha iyo dhulka ku tumin baa la yiri oo cagatunkaasi raggu soo jeediya gabadhu qudubteedu ragga way soo jeedisaa ilaahay baa wuxuu leeyahay dumarku iyo cagaha dhulka ku tumin idan waxaan leenahay hadii la rabo al-iffa hadii la rabo dhaqan islaam waynu meesha yimaada waalidka waxaan leenahay intaynu hablaha dawaar marin lahayn xishmad iyo dhaqanka islaamku uu barayaan barro oo ah inaynu inamada iyo hablaha kala soocno oo ah inay xijaabato asturkeeda qaadato oo ah aqeeda iyo diin iyo aakhira iyo wax dhowri karo qofkan oo xijin kara oo xisaam u ah inaynu barro oo qofkan uu naar ka fakray iyo janno iyo sharaftidiisa iyo magaciisa uu ka fakari karo haddii akhlaaqdu ay qaabka u dhisanto bulshada akhlaaqdeeda la dhiso oo laga joojiyo TV-yada iyo qurunka iyo raadiyoyada iyo waxaan laga wado naagahan islulaya hooyooyin islulaya ku jira ma aha inan yar yani dhaqanku markuu xumaado xumaha marka dambe wanaag noqda ma ka hadlayo qofku inuu gabay tiriyo ama hees tiriyo ama caynkan waa adab waa luqa waa la tirin karaa laakiin tan la wade muusiga loo tumay horta hidiyo dhaqanka kuma jirto hidiyo dhaqan Soomaaliyeed muusiga ma jiro hadii lagu yiraahdo hidiyo dhaqan baa la noolanaya hidiyo dhaqan gaaleed weeyaan muusigu Soomaali gaalkii Ingiriisiga intii la socota bigil iyo waxa la tumaba ugu horeysay shacabkeeda ay tumi jirtay cagahay dhulku garaaci jirtay ma jirin wax la tumaa idan dhaqanna uma aha waa dhaqan gaaleed hidana uma aha waa hidda cid kale leedahay hidda muslim maaha waxa habboon in bulshada muslimka ah maamulka iyo dawladda waayeelka iyo dadka mas'uulka ah macallimiinta iyo dadka iskuulada jooga in xishmada iyo xayaaga dib loo nooleeyo haddii la rabo inay dumarkuna cafiifaat noqdaan ragguna uu cafiif noqdo abba waliba uu jecel yahay inantiisu inay dhowrsanaato abba waliba inankiisu inuu dhowrsanaado inantiisu uu jecel yahay laakiin haddana wadadii lama hayo wada kale inuu ku raadacaynayna ma aha in gaala inta inoo timaado maalin walba khitaan fircauni baa wax xumeeya iyo ceebtu waxay gaadhay in culimadeena loogu yeedho inay ka hadlaan un dumarka hoostooda iyo halkaas iyo hay-adii wado $10 lagu bixiyo ma aha waxaan leenahay gaalow iska takhitaanka fircooniga adigu ka yimi isaga xisaamkan iyo waxaan wato iyo fircoon iyo waxaan oo dhan islaamkeena hadaynu u noqonnaa waxaan oo dhammi baabaaya xishmadii iyo dhaqankii iyo xayaagii iyo dadnimadii inuu soo noqdo islaamnimadeena inaynu dib ugu noqonno dhalinyaro idinkuna si u dhowrsanaataan kow musiiraadka ka baxa musiiraadku waa laba musiiraad khaarijiya waxa qofka kiciya
qofka bini aadamka ah meel hadduu gaadhaa jirta ay khatarta inuu soo noqda waa meelaha nebi yuusuf iyo maxaa la yidhahdaa ninkaa godku uu ku dumay iyo jurayj iyo nimankaan iyagu meesha khatarta intay gaadheen bay haddana dhowrsanaadeen si laynoogu tilmaamo aakhire inaan daliil helaynin laakiin innaga sharcigu wuxuu ina faray meesha inaynan gaadhin marka hore meel ka horraysa ku joogsanno oo ah ishaada laabo waxba haweenka ha sii eegeegi oo ah inantaay xishood oo ah inankow xishood oo ah isku dhex darsamina waxaan oo dhammi waxay xisaam u yihiin waxay teed u yihiin in wixii ugu dambeeyo zine uu dhaco waa cifatu lisaan iyo samci iyo basar ilaahay qur-aanku ina faraya inaynu isheena dhowro si aynu cafiifnimada u gaadhno idan musiiraadka khaarijiga ah oo xawaasteenna shanta ah inaynu ilaalino waa kow dharka iyo maryahaynu xidhanayno inaynu ilaalino ragguna marya gaaleedkan tirada badan leh in la iska daayo marya gaaleedku xad baynu gaadhsiisannahay inaad aragto qof salaad tukanayo dabadu qaawantay masaajidda bal idinku gala safka kaa horreeya inanka ku tukanayo dabadiisa kuu muuqanaysaa waa ceeb salaadina sixi mayso laakiin gaal baa inoo soo tolayoo maalinba mooduu tolaa mid dabada laga xidho mid candhada hoosteeda laga xidho mid bawdyaha laga xidho waa dhar gaal waxay ahayd ama inaynu dhar muslim soo tolno ama dawarwalaheenna aynu u tagno inuu dhar ka tulan jirno tolanno libaaska habluu qaadanayaan iyo ka inamadu qaadanayaan labaduba dhar muslim inuu noqdo dhar cawrada astura oo aan ku dhejisnayn oo fool xumayn waxaynu u baahanay marka waxaasi waa musiiraadkii khaarijiga ahaa musiiraadka nafsigaana inaad iska dayso oo ah dhallinyaradu waxay u baahan tahay dad camaliyiin oo mashquula inay noqdaan haddaad enerjigaaga isticmaasho dumarka iyo waxanba waad ilaabaysa haddiise enerjigu intuu kugu kaydsamo maantao dhan aad maqaaxi fadhido sheekaynayso aanad waxba qabanin cunnana aad dibirtay fiidka markaad tagto guriga sawirraa indhahaaga hor yaacyaacya aan jirin riyadaa kugu badan laakiin waxaasoo dhamma waxay ka yimaadeen camalla'ida qofkan sida neefka xoolaa waxna cunaya beerkana u jiibsanaya waxaad u baahan tahay kow inaad shaqo samaysato wax akhriso wax taalaco wax baro xoogso wax qabo xataa cayaar tag inanka galabta kubadda soo cayaaree dee isna aan salaadu ka tegin caawa meel la qaban maayo iska seexanaya u daallan yihi socanka maaha inanka basketball soo turtuuray caawa isna meel la qaban maayo enerjigaagii baad wax kale ku isticmaashay ninka intuu meel fadhiistay 3 saacadood buug akhrinayay waa daallan yahay uu seexanaya haddaad si enerjigaaga isticmaali weydo kugu kaydsamo fiidkaad sheeka bilaabiyo heblaaya la hadal iyo xaggan ka boodiyo meeshan ka bood idan kow dhallinyaro haddaad rabtaan firaaqa ka baxa firaaqu waa dadku dilaa qof cimrigiisii wuxuu ku qabtay garan waaye waa ceeb cimrigu waa nicma alla ku siiyey haddaad nicmada garanba weydo waxaad ku samaysaa tiraa maxaynu ku dilaa waqtiga waa ceeb firaaqaasi waa musiiraadka daakhiligaa buu ka mid yihi firaaqu markuu kugu tiro bato cunnadu kugu tiro badato hadday dee cunnadu kugu tiro badatana iyada iska yaree baa lagu yidhi xataa yo maxay samee soom baa lagu yidhi nin gaajoonaya dumarka ma fekero marka la dhergo ayaa dumarka laga fekeraa idan haddaad soontana waxaan waad ilaabaysaa nebigu wuxuu uhi war dhallinyaroy guursada haddaad taa awoodi weydaan dariiqa kale idin furane waa maxay buu nebigu leeyahay dee waa sooma dhallinyaro soonkiinu hadduu noqdo bil ka bil ramadaanta unbaad sugtaan soo maaha inta alla waafajiya ee ragga ay waa inta ramadaanta soontaa laakiin waxaa laynoo baneeyey inaynu khamiis soonno oo isniin soonno oo ayaamulbiidka soonno oo maalmo tiro badan oo sunana oo soo arooray soonno waxaasoo dhammi waxa weeyaan litarbiyati alanfus in laynagu rabeeyo ugu dambayn hadday dhallinyaradu dhowrsanaato waxay noqonaysaa bulsho qurux badan baa dhalanaysa oo rag iyo dumarba dhowrsoon oo zine iyo xanuunada faafiyo qurunkoo dhammi ka baxay oo cibaado iyo wax soo saar iyo mashquul wax kale ku ah waxaan ku soo koobayaa markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa allahuma innii as'aluka waxaa uu nebigu ku ducaysanayay allahuma innii as'aluka alhuda waltuqa والعفاف والغنى dhowrsooni buu ilaahay weydiisanayay badiya inaa ilaahay subxaanaه wa tacaala dhowrsooni weydiisataan
nebigii alla dhowray ayaa haddana ilaahay dhowrsooni weydiisanaya. idan dhowrsoonidu waa mujaahada baynu leenahay, waa wax dadaal u baahan oo baryo aad ku kabto, ilaahay baryadiisa iyo cibaadadiisa aad ku kabto buu u baahan yahay. bulshadii dhowrsoonidu ku badataana khayrkaa ku bataa. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu annagana na dhowro, idinkana uu idin dhowro, dadka muslimiinta oo dhanna diintooda uu dib ugu celiyay si ay u dhowrsamaan. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.